السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا أقوان دون channel وعشر كيني اللواد مادة سي وحينوغا هادلينا سيدا شاشة wax loogu soo daawaco adigoo isticmaalaya keyboardka aynu isla daawano practicalka ugu horeyn waxaad soo kicinaysaa toolka aad isticmaalaysay kadib waxaad imaataa interface-ka sida caadada inoo ahayd waxaan leenahay hash kadib waxaad qortaa include waxaad furaysaa tag waxaad ku qortaa studio.h soo xir tagga waxaan leenahay int kadib waxaad tiraahdaa main waxaad furtaa oo xirtaa bracket kadib waxaad leedahay enter haddana waxaan furaynaa braces tusaalahan waxaan rabnaa inaan u isticmaalno in tiro gudaha aan ka soo gelino kadib aan shaashada ka soo daabacno marka waxaad leedahay int waxaan u dhiibaynaa marka qiimihii aan rabnay tusaale kale waxaad tiraahdaa tiro kadib waxaad leedahay semicolon enter dheh waxaad tiraahdaa printf oo inoo suuragelinaysa inaan shaashada wax ka soo daabacno waxaad furaysaa oo xiraysaa double quotation intaa markaan sameyno hadda waxaan leenahay marka soo geli tiro waxaad tiraahdaa 2 dhibcood kadib semicolon ku soo xir waxaan leenahay enter kadib waxaad tiraahdaa scanf haddaba scanf waa maxay scanf waxay inoo suuragelinaysaa inaan input soo sameyno oo xaraf ama tiro aan gudaha ka soo gelino waxaad leedahay double quotation kadib waxaad tiraahdaa %d intaa markaad tiraahdo waxaad leedahay comma waxaad taabanaysaa calaamadda and waxaan hadda u dhiibaynaa marka qiimihii hore aan usoo siino oo ahaa tiro intaa markaan sameyno waxaan ku soo xiraynaa semicolon enter dheh mar labaad waxaad leedahay printf tan waxay inoo qabanaysaa markiina la weydiiyo su'aasha ah soo geli tiro kadib tiradii aan gelino mar labaad haddana waxaan rabnaa in jawaabtina la siiyo marka printf tan waxaan leenahay double quotation kadib waxaad leedahay tirada aad soo gelisay waa intaa markaan aan waxaad tiraahdaa 2 dhibcood kadib waxaad leedahay %d waxaan leenahay comma kadib waxaan dhahaynaa tiro oo noqon doonta qiimihii aan hore usoo siinay kadib waxaad leedahay semicolon ugu dambeyn waxaad tiraahdaa return 0 kadib waxaad ku soo xirtaa semicolon control s ha u save garayso waxa samaysay bal aynu tijaabino waxa aynu sameynay waxaad imaataa halkan build and run ugu horeyn waxaana la weydiiyay su'aasha ahayd soo geli tiro tusaale kale waxaan gelinay 34 enter markaan dhahno waxaan rabnaa inay inoo soo daawacanto tirada aad soo gelisay waa 34 bal aynu isla aragno saa arkaysaan halkan waxaa ku qoran tirada aad soo gelisay waa 34 casharkeeni halkaa buu inoogu egyahay intaan ku kulmi doonno casharka xiga waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh